Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku soo dhawaada channelkayga sheekooyin iyo qisooyin. Weli waxaa inoo socota sheekadii kun habeen iyo habeen qaybtii saddexaad. Sheekada habeen hore waxay inoo maraysay sheekadii dameerka iyo dibiga iyo ninkii beeraleyda ahaa. wasiirkii wuxuu gabadhiisa ku yiri ogow gabadheydii inuu jiro nin beeraley oo xoolo dhaqato ahaan jira, wuxuuna lahaa xaas iyo caruur. ninkaasi alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luuqadaha xayawaanaadka iyo shimbiraha, laakiin hadduu ku xog waramo wuu dhimanayaa. ninkaas beeraleyda wuxuu lahaa dameer iyo dibi. dameerka shaqadiisa waxay ahayd in ninka raaco meeshuu doono ku aado, halka dibiga shaqadiisa ahayd in subaxii ilaa galabtii beerta lagu falo. maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska fadhiyo oo cooska iska cunayo, biyana ag yaalaan. wuxuuna ku yiri way ku dhacatay aniga waan daalay oo tabcaan ayaan ahay, sidii beer la igu falayay, laakiin adiga halkan ayaad cooska iska ruugaysaa, shaqo badanna ma qabatid. markaas ayuu dameerkii yiri talo aniga ayaa ku haayo, bari markii lagu yimaado oo xarga iyo tiirka yaambada beerta lagu falaayo lagugu xidho, iska fadhiiso hana istaagin, xitaa haddii ay ku garaacaan. haddii aad kacdana mar kale fadhiiso. markay kaa dareemaan tabardarri waxay kuu keenayaan bal iyo coos si aad xoog u yeelato. ha cunin, cunto iyo cabisna jooji ilaa 2 maalin. sidaas ayaad shaqada badan kaga nasan kartaa. ninkii beeraleyda ahaa sheekadooda ayuu maqlay, wuuna la yaabay. subaxii ku xigtay markii la gaaray ayuu dibigii diiday inuu kaco si kasta oo la isugu dayay. wuu kici waayey. markaas ayuu ninkii beeraleyda ahaa yiri dameerka ha la wado oo beerta ha lagu falo. markaas ayaa dameerkii la waday oo maalintii dhan beer lagu falayay. galabtii markii dameerkii moorada kusoo laabtay, waxaa u mahad celiyey dibigii abaalka uu sameeyey talada uu siiyey, laakiin dameerkii uma uusan jawaabin, isagoo si xun uga shalaayay in taladaasi isaga siiyey dibiga. maalintii labaad ninkii beeraleyda ah ayaa wuxuu u yimid dameerkii isagoo dibiga faraha ka qaaday. mar labaad ayaana dameerkii lagu soo falay beertii. galabtii isagoo tacbaan markuu soo laabtay xiradii ayaa waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii, laakiin dameerkii ayaa markaan ku yiri dibigii aniga waan kuu nasteexeen, waayo waxaa maanta maqlay in ninka beeraleyda shaqaalihiisa ku leh haddii beri dibiga kici waayo waxaad u geysaan kawaalaha si loo qalo. wax faa'iido kuma qabee marnaba hasduu beerta fali karin. markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey, wuxuuna ku dhahay beri waan howl bilaabi doonaa. ninkii beeraleyda ahaa sheekadaasna wuu maqlayaa. subaxii markii la gaaray dibigii wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno, isaga oo shaqo isku diyaarinaya. subaxii markii la gaaray ninkii beeraleyda ahaa wuxuu arkay fagfagta dibiga ka muuqatay iyo siduu shaqo diyaar ugu yahay. ayuu qosol la dhacay. naagtiisa oo meesha ka dhoweed ayaa waxay tiri maxaad ku qoslaysaa? markaas ayuu wuxuu yiri haddaan kuu sheego waan dhimanayaa. waxay tiri ii sheeg xitaa haddaad dhimanayso. markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo. dadkii ayaa isku dayay inay naagta la hadlaan oo celiyaan, laakiin way diiday. waxay tiri waan ogahay aniga ayuu igu qoslayaa, ha ii sheeg wuxuu ku qoslayo xitaa haddii uu dhimanayo. ninka beeraleyda ah naagtiis aad ayuu u jeclaa. wuxuu go'aansaday inuu u sheego. wuxuu aaday gurigiisa si uu 2 rakaco sunno u tukado. isagoo guriga ku dhex jira ayaa waxa uu maqlay eygii guriga joogay iyo diiqii oo la hadlaya. wuxuuna ku yiri diiqow adiga halkan ayaa 50 dooro iska dhex fadhida, saaxiibkeen wuu dhimo rabaa. markaas ayuu diiqi yiri haddii saaxiibkeen uu aqli leeyahay naagta wuu iska edbin lahaa. aniga 50 dooro ayaa ii joogta, mid hadday ii xanaaqdo inta iska edbiya ayaan kuwa kale iska dhexgalaa. waxaase fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa edbiya ilaa ay ka toobad keenayso. ninkii beeraleyda ahaa hadalkii ayuu maqlayaa. kadib ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yiri qolka soo gal, si gooni ayaan wax kuugu sheegayaa. markii qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qayliso ay tiraahdo waan toobad keenayaa. halkaas ayayna naagtii hadalkii uga noqotay, dadkiina ku farxeen maadaama ay noloshii ninkii badbaaday. markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii ku yiri adigana sidii dameerkaas oo kale inay kuugu dhacdo ayaan ka baqayaa. inta aad isleedahay dad badbaadi naftaada halisgeliso. markii Shahrizaad maqashay sheekadaasi ayaa waxay ku tiri wixii dhacay ha dhaceene, boqorkan ii guuri aniga ayaa diyaar u ah.
sidii ayaa gabadhii boqorkii loogu guuray waxaana gabadhii Shahrizaad ahayd lasii dardaarantay walaasheed ka yar oo Duniyazaad iyadoo ku tiri markii boqorka la ii geeyay waxaan kaa codsanayaa habeenkaas markuu dantiisa iga bogto inaad habeenkaas wehel ii noqoto haddii uu ogolaado waxaad igu dhahdaa abaayoy ma idinoo sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa ama maadaama aad beri naga tegayso lagu dilaayo anigana insha Allah sheeko aan boqorka kaga taqlusay Allah ayaan bilaabayaa kadibna gabadhii sidii ayaa lagu galbiyay markii boqorkii loo geeyay ayay gabadhii Shahrizaad ahayd ooysay markaas ayaa boqor Shahriyaar yiri maxaad u ooynaysaa waxay tiri waxaa jirta gabar walaashayda ah oo iga yar waxaan rabaa inaan sagootiyo iyo ogolow markaas ayuu ogolaaday kadib markii Duniyazaad imaaday ayay habsiisay iyadoo sagootinaysa markaas ayay Duniyazaad tiri abaayoy ma nooga sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah markaas ayay Shahrizaad tiri waan ka sheekaynayaa hadduu boqorka inoo ogolaado markuu boqor Shahriyaar hadalkaas maqlay ayuu yiri bal sheeg aan maqlay sheekooyinkaas mid ka mid ah habeenkii koowaad sheekadii ninkii taarjirka iyo cirfiidkii ayay ka sheekaysay Shahrizaad asxaabta weli sheekada way socotaa